waxay igu tidhi, cabdiraxmaan, haddii aan ku jeclaado, aan si dhaba kuu jeclaado, aan xiriir dhaba kula sameeyo, waad i cidlaynaysaa, waan ku waayayaa, anigana waan ilmaynayaa, waan murugoonayaa, waan rafaadi doonaa, weliba waxaan raadin doonaa farxad meelasha aan ka helayo. Kabacdi waxaan raadin doonaa farxad qof aanan xitaa u qalmin inaan noloshayda siiyo ayaan u hibayn doonaa. Kadibna qofkaasi wuxuu noqon doonaa qof aniga ku ciyaara mustaqbalkayga. Sidaas darteed waxaa noqon doonaa qof ka dhacay nolosha oo dhan. Waan hadli waayey. Waxaa igu dhagay hadalka oo dhan. Waxaan garan waayey xaaladaan ka hadlo. Waxaan fahmay inay ka hadlayso meel fog iyo meel dheer. Waxaan dareemay inay tahay sheeko dhaba ii jirta, haddana u baahan xal. Anigana waxaan kalsooni buuxa ku qabay inaan haysto ruux aan aad ugu hoggaamiyey inaysan cidlilin ruux kale, inaysan dayicin ruux kale, inaysan dhibaateen ruux kale, weliba aysan khiyaalin nolosha uga burburin ruux kale. Ruuxdaasi ayaana kalsooni buuxda ii gelisay inaan ku dhiirado hadallada ay soo gudbisay gabadha. Mar qura waxaan la soo booday, haa, waa run, waxa oo dhan waa sax, balse ma dhici karta inaan adiga ku cidleeyo aniga. Waayo hadalkan ruux walba waa uu ku yidhaah adiga. Waan ku jeclahay, anaa kaa daran, waan isjecelnahay, waan isdhahaa. Laakiin maahan aniga kaa kala hadlaya kaa. Waayo muddo fara badan waxaan ahay dad saaxiibo ah, waan isku dhoweyn, waan wada sheekaysan jirnay, waqtina waa qaadan jirnay. Balse maalin qura ma aysan igu soo dhicin inaan noloshaada adiga burburiyo. Xitaa rabitaankaaga waxaanan ahayn aniga maanan samayn. Markaasi waxay haddana igu soo celisay su'aal kale oo ahayd, ragga oo dhani waxay u dhaqmaan sida tan, waxay dhahaan sidan hadda igula hadashay, hadhow waxay noqdaan bahalo aniga i cuna. Laakiin hadda nin waliba afkiisu waa malab oo wuxuu ku hadlayaa hadal walba oo macaan si uu ku helo gabadha. Waan dhoola caddeeyey, weliba qosol ay maqlayso. Qaali, waxaan kaala hadlaya maahan khiyaali, maahan ciyaar. Uma baahni aniga inaan ku raaxaysto jirkaaga iyo naftaada caadiga ah. Waxaan u baahanahay ruuxdaada fog, mustaqbalkaaga iyo rajadaada dheer. Ma rabo inaan noloshu arko waxyaabo fudud oo aadaanan aniga igu dhadhamaynin. I aamin, uma baahni inaan noloshaada ku ciyaaro aniga. Waxaan u baahanahay mustaqbal dhaba, farxad dheer iyo rajo dhaba, laakiin uma baahni waxyaabo daciif ah iyo maalayacni. Waxay tidhi, waxaan arki doonaa dareenka iyo jacaylkaaga halka uu gaadho. Waxaan kuu rajaynayaa inaad noqotid qof daacad ah, aanan ku fududaanin waxyaabaha khiyaaliga ah. Waan farxay, weliba si cajiib ah. Farxaddaasi oo dhanna waxay ahayd mid aniga aad ii dhiirigelinaysay. Waxay iga codsatay ka hor go'aanadeenna inaan is aragno, wada kulanno, sheekaysanno, weliba sheeko dheer oo aan si dhaba isku fahanno. Ballanta waxaan qabsanay galab Arbaca inaan ku kulanno hotel ku yaalla Banaadir. Habeenka aan sheekaysanaynana wuxuu ahaa habeen ay Isniini sii baxayso. Maalintii Talaadada iyo subaxii Arbacada waxaan ahaa nin xisaabinaya waqtiga oo tirinaya. Midhiradu aad bay ila dheeraayeen, daqiiqadaha haba sheegin, saacadna warkeeda. Waqti walba wuxuu ii ahaa kan mukaa gudbo oo kan kala imaado sidaan u dhararayo oo keliya. Laakiin wuxuu waqti isku raba waxaa la gaaray 10kii galabnimo ama 4tii galabnimo si uu qof walba u fahmayo. Galabtii waxaan u diyaargaroobay inaan aado halkii aan ballanta ku lahayn. Waan labistay, waxaana tegay goobtii anigoo aad u faraxsan. Xitaa sidii nin caruus u socdo oo kale waxaan sii mariyey gaarigayga labaajo. Xilli horeba caraftiisaba cajiib bay ahayd oo aroos in lagu soo galbinayo oo kale baan ka dhigay. Markii aan la kulmay waxaan qaadanay waqti farxad badan. Waan sheekaysanay, waan kaftannay, waan wada qosolnay, weliba si cajiiba. Iyadu laakiin waxay ahayd qof inta badan ka xirxiran sheekadeenna, qosolkeena iyo kaftankeena. Xitaa marka qaar waxaan isdhahayay ma kulanka waa isbeddel ku keenay. Ugu dambeyn waxaa soo gabagaboobay kulankeenii oo waxaa la gaaray
xilliga dambe waxaan isku dayay inaan geeyo xaafadeeda kadib waxaan kaga soo maxsalaamiyey albaabka gurigeeda markii ay xarootay markaan xaafadda imid waxaan rajeynayay inay dib ii soo wacdo si ay igula sheekaysto balse ma aysan dhicin mar kale anigaa wacay laygama qaban telefoonka waan ku celiyey laygama qaban telefoonka waan ku celiyey laygama qaban telefoonka ilaa dhowr jeer baan wacay laakiin marna laygama qaban telefoonka saacad kadib ayaan wacay telefoonka laakiin waa layga qabtay markii layga qabtay ayaan ku idhi si degan abaayo macan maxaa kuugu dhacay telefoonka maadan iga qaban xitaa xaafadda ma nabad tagtay maadan i dhihin maxay tahay isbeddelka aawo farxaddaadii si aanan farxad lahayn ayayna waxay ugu jawaabtay mar qura annakuma caalanto xilkuma baadaye caashaqana habaayen yaanayb soo bixin qaybta xigta la soco habeen dambe hadduu waa laydmo fadlan aragtidaada hoos inoogu reeb si aan u ogaano habka ay kuu soo gaartay sheekadan mahadsanidin